asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawaada asxaabta igu xiran meel walba ku sugan tihiin. waa mar kale iyo muuqaal cusub. muuqaalkan run ahaanta waxaa ugu talagalay caruurta jiro 8 bilood ilaa 3 sano inta u dhexeyso da-dooda ayaan ugu talagalay. haddii ku joogaan marka ilmo yaryar oo jiro da-daas uga faa'iideyso si wax badan oo faa'iido ah aad u heshid. muuqaalkan aad u weyn hooyooyinka hadday u fahmaan waxaan rajeynayaa in wax badan ilmahooda ay iska bedelaan. caruur yaryar oo waxaa jira markasto abiteedkoodana normal uu yahay uu iska fiican yahay balse cuntooyinkii ay aada uga jahwareersan yihiin. caruurtaas oo kale aada uga faa'iideeya muddo asbuuc ah gudihiis ayuu cunugaaga noqonayaa mid isbedelay koriimo ahaan iyo dhinac kasta oo caafimaadkiisa ah. marka insha allah ka faa'iideysta. waxyaabaha uu ka kooban yahay waa waxyaabo basiid ah guri walbana aad ka heli kartid. waa bataati macaan. bataati macaanka ilmaha aad buu u koriyaa miisaankooda wax badan ayuuna kusoo daraa miisaankooda. bataatiga waad dhaqaysaa, waad fiiqi dir koraa ka qaade, waad soo jarjare kabacdi biyo ayaa dabka la saare. biyihii markuu guursado uu bislaado balendarka ayaad ku shubaysaa. ukun ayaad ku darsaneedaa. ilmahaaga 8 bilood hadduu ka yaryahay shaharka keliya ugu dar, laakiin hadduu 8 bilood ka weyn yahay hal xabo waa ugu darsan kartaa. inkastoo aada u fiican yalowga ama qaybta jaalaha ah in aa ugu dartid iyo caano. 3daas qayb keliya waaye. intaas ayaa si fiican isugu qasee oo si fiican aad isugu shiiday. kabacdi cunugaaga maalinkii 3 mar ayaad siinaysaa. si fiican gabarey u furo dhigaha. maalinkii 3 mar ayaad siinaysaa. waxaad arki doontaa natiijadaas asbuuc gudihiisa cunugaaga in koriimo qurux badan uu ku helay. koriimadiisana aada ay u dhamaystirmatay. wax badanna aad ka faa'iiday cunugaaga waxyaabihii aad siiday. waana hubaal in aad iiga soo ducey doontaan meel walba joogtaan. mar walba waxaan u taaganahay hooyooyinka waxyaabaha anfaco aada ubadka ula koriyo. hooyooyin badan oo waxaa jiro mar walba ay ka jaawareersan tahay qaabka ilmaha loo koriyo. waana waxyaabaha mar walba aad channelkan isdhigi karo hooyooyinka aad bay uga faa'iideysan karaan oo markasta ah inta badan diiradda aan saaro uga faa'iideeyo cunugaaga si wax badan oo miisaankiisa ah ay siyaado ugu soo darsoomo. waxyaabaha kaa saacidi karan waxaa kamid ah siyaabahan oo kale inaad u sameydid oo aada u fudud. masaasadaa ugu shubi kartaa, qaadaa ku sii kartaa, 3 waqti aa kala sii kartid. waa quraacda kadib, qadada kadib iyo galabkii casari ahaan ayaad u siinaysaa. ma fahamtay? quraacda iyo qadada wax yaroo fudud u sameey kabacdi intaan siiso. maasha allah markuu cunugaaga 1 saac ku joogo oo wax uu cuno kadib ayaad siinaydaa. kaala arag ayuu noqonayaa cunug miisaankiisa culus yahay, laftiisa aada u korto. maasha allah koriimadiisa wax badan ay kusoo kordheen ayaad arki doontaa. waana hubaal haddii aadan ka caajisin oo 3 mar aad siidid in wax badan uu iska bedeli doono biidnillahi alkariim. mar walba waxyaabahan oo kale markaad u sameydid xitaa dhadhan ahaan aad bay uga helaan. haddii aad tahay ilmooley mar walba waxaa kugu haboon in aad taladan qaadatid. ilmaha hal mar wax dhan ma wada cuni karaan, laakiin waa in aad isbeys u dhexeysiisaa timekii aad cunada siinaysay iyo timekii kale. aada oo weyn ayaad uga faa'iidey kartaa barnaamijkaas. waxaan gudagelaynaa qodob kale ama cashir kale oo aada muhiim u ah asagana ilmahaagana wax badan kusoo kordhi karo. waxaad sii doontaa cashada kadib cunugaaga si aad natiijadiisa aad u aragtid. weliba natiijo dhaxalgal ah waaye. ama cashada kadib sii ama quraac oga dhig. labadaas midaa doontid sameey. wax kale ma ahan. waa wax aada u fudud sameyntoodana waqti badan aan kaa qaadanaynin.
qarash ahaantoodana aada u fudud waaye. Marka waa moos iyo ukun, labadaas ayaa waxaad sameynaya. Ukunta soo karine, markay soo bislaato moos bisil iyo ukuntaas ayaa waxaad sameynaysaa blenderka isugu ridaysaa. caanihii cunugaaga aad siisatid ayaad ugu shiidaysaa. kadib cunuga waxaa ugu shubanaysaa masaasadiisa ama qaada ahaan ayaad ku siinay. mar walba masaasada ugu shuba markaan dhahayo. ilmaha mar walba isku mid ma ahan. ilmo waxaa jiraan qaadada afka markii loo saaro diidaya, afka isku dhajinayo, iyo ilmo kaa qaadanayo. xitaa bahasha yar oo leh qaadada oo la riixi karo oo sida masaasadoo kale ah laakiin aada uga jilicsan waa ugu shuba kartaa, waad ku sii kartaa, mushkila ma laha. meeshaan kale cabitaan ayaan iga wadaa. cabitaanadan mar walba waa cabitaano miisaanka ilmahaaga aada u soo celinayo. haddii aada u sameydid sidii loogu talagalana in badan cunugaaga uu isbedeli doono, weliba si dhab ah uu isku bedeli doono. wax walba oo lagu celceliyo natiijo ayaa laga helaa, dhaxalgal ah. waa cabitaan aada u fudud, wax badanna ku jiro oo borotiin ah, ilmahana wax badan ka saacidayo. waxaa u baahan tahay timir, waxaa kale aa u baahan tahay lowska noocyadiisa kala duwan ayaad u baahan tahay, wixii aad ka heli kartid. waxaa kale aad u baahan tahay jeex tufaax ah ama jab tufaax ah, caano. intaas ayaa blenderka ama garaafaha mashiinka shiidka aad isugu shubaysaa. si fiican ayaad u shiiday, kabacdi waad ka miiraysaa waxyaabaha taagtaagan si ay uga haraan. kabacdi cunugaaga ayaad siinaydaa, waxaad uga dhigaydaa cabitaan nafaqeysan, miisaankiisa in badan wax badan kusoo kordhiyay. hooyooyinka intaan haddii aa fahamtid wax badan ayaa kusoo kordhayo ilmahaaga. caafimaadkoodana kor ayuu noqonayaa. cunugaaga daciifnimada jirkiisa ayaa yaraanayso, fitamiinaadkiisa ayaa kaamil noqonayo, miisaankiisa kor ayuu noqonayaa. mar walba cunugaaga wuxuu noqonayaa cunug awood ku filan leh jirkiisa. waxyaabaha dhiiga soo celiyo ayaa ku jiro oo aada u weyn. cunugaaga HB-giisa uu ilaalinayo. mar walba cabitaanaadka noocan ah waa muhiim hooyooyinka inay ogaadaan, ilmaha inay u sameeyaan. xitaa waxaa u samey kartaa caruurta 3 sano ka weyn waxbarto, kaala arag waaye. wax badan ayaa ka arki doontaa oo natiijo ah. waana sina wuu u sahlan yahay, sina faa'iidadiisa aada bay u sareysaa. marka ha ka daalin mar walba waxyaabaha noocan oo kale ah. hadaa ka daashid adag ku talagabaray, caajiska iska dhaaf. mar walba u sameyso caruurtaada cuntooyin nafaqeysan, cabitaano nafaqeysan, adigoo mar walba ka fiirinayo dhanka waxtarka leh, waxyaabaha vitaminiska ku badan adigoo fiirinayo. aada u weyn mar walba uga taxadir. mida kale waxaa ku darsan kartaa boorash, ma fahamtay? boorash ayaa ku darsan kartaa. waxaa ka dhigi kartaa timir, lows, jab tufaax ah, boorash aad soo karisay, caano. intaas ayaad ka shiida kartaa si mar walba cunugaaga miisaan bucbuc ah hadaa u rabtid boorashka ugu darso. hadaadan u rabinna inta kaleeto isugu dar tufaaxa iyo lowsiska iyo caanaha isugu shiid. cabitaan bis hadaa ka rabtid. haddii laakiin cunto xoogaa culus aa ka rabtid, boorashka ugu darso. kaala araguu noqonayaa cunugaaga maasha allah. wax badan ayaan miisaankiisa kusoo kordhayo. abiteedkiisana wuu furmo. cunuga abiteedkiisa hadduu furmo waxaa u sahlanaanayso in cunto fiican uu kaa cuno. mida kale calooshiisa inay jilicdo, musqul uu kaa galo ama uu saxaroodo ayaa mar walba ka saacidaysaa. abiteedka ilmaha markay u furan tahay iyo markii la siiyo cuntooyinka isku dheelatiran, vitaminiska ku badan, waxtarka badan maqaarkooda iyo jirkooda iyo lafahooda maskaxdooda siinayo. wax badan oo waxaa arki doontaa caloosha cunugaaga ku saabsan oo nadiif ka dhigay cabitaanaadkan oo kale. mida kale caloosha ilmaha aada bay u nadiifiyaan, dhiigay nadiifiyaan, jirka cunugoo dhan waxay ka dhigaan wax aada kaliin u ah oo nadiif u ah ayay ka dhigaan. markastoo isku day in aad ilmaha wasaqda jirkooda ku jira aada bixisid. ku dhaq waxyaabaha dabiiciga ah adigoo kiimikaal aan isticmaaleynin. si sahlan cunugaaga aada uga dhigi kartid mid aada si qurux badan kuugu koray, koriimadiisa ay wacan tahay,
cuduradoo dhan aad la dagaalantid. waxyaabaha kaa saacidi karo waxaa kamid ah in cabitaanaadka noocan oo kaleeta ah iyo cuntooyinkan amaanta kuu soo geliyay si aad ah mar walba aad u fiirisid, aadna u samaysatid ilmahaaga. guri kasta oo Soomaaliyeedna kuley waxyaabahan aan soo geliyo waa laga helayaa. laana marka aan soo gelinayo waxyaabo waxaan fiiriyaa waaqaca lagu sugan yahay. hooyooyinka waxay isugu kala jiraan dhowr nooc, kuwa awoodo, kuwa aan awoodin iyo kuwa tabartooda ay normal iska tahay. marka waxyaabaha aan isdhihi karo hooyooyinka inta badan way awoodi karaan ayaan soo geliyaa. lows almoonka kaliya muhiim ma ahan, lowska Soomaaliga ah daahileysid xitaa waa ku samaysan kartaa. markasto meeshii adiga kuuron, adiga og wixii aa haysatid, bisinka u qabso, ilmahaagana u sameyso. intaas ayaa caafimaadka uu ku jiraa. intaas ayaana mar walba wax dhan oo muhiim ah waxaadan awoodin haddii aa isku daalisid waxwaay mar walbo niyadana kuuma degano, wax badanna way kaa maqan yihiin. marka intii aa haysatid alxamdulilah dheh, wax ka badan waxaad tiraahdaa ilaaho isii. laakiin markasto ha isku walaacin ama ha isdhihin waxaan ma haysatid, dadka kale way haystaan. waxyaabahaas ha isdhihin, inta aa haysatid ilaahay waxaad ka baridaa inuu kuu barakeeyo. dadaan haysanaa jiro, dad aan awoodinaa jiro. marka dadkan waa laisku fiirinayaa. ilaahay subxaana watacaala adoomadiisa waxba muusu waayin, laakiin wuu isku fiirinayaa. marka insha Allah waxaan rajeynayaa gabdho in aad ka faa'iideysataan muuqaalada noocan oo kale ah. aad bay u faa'iido badan yihiin run ahaantii. gabadha walaasha ah uga faa'iiday, dariskaaga ah uga faa'iiday, faa'iidaas aad uga faa'iideysay wax badan oo waxaa ka arki doontaa natiijooyin dhaxalgal ah ayaad ka arki doontaa. wax badanna waad ka faa'iidi doontaa, sababtoo ah mar walbo oo wax wanaagsan aad soo kordhisid waa mar walbo ilaahay subxaana watacaala ajar uu kaa siiyo. muuqaaladan u sheergaraya gabdhaha saaxiibadiina ah in alle intaa gelinaysid oo gabar ilmo heysata ah, wallaahi aad bay u caawinayaan. uga faa'iideeyay, adigana ajar ayaad ka helaysaa, anigana ajaraan ka helayaa insha Allah biidnillah. sida aad u niyeysatid ayana wax walba noqonayaan. mida kale gabdha waxaan iga rabaa muuqaalka like gareeya, like-ta waa ka fadhisiin, daawashada iska wadaa. ayaantan ma aqaano, wax badan ayaa qaldan. marka insha Allah biidnillah anigan fiidiyoyada waan isoo dardargelinayaa, adinkana daawashada dardargeliya oo like-ta saara oo share gareeya. oo haddii ay igu cusub tahay baa subscribe ay saartid waxba ma kaa dhibaayo, subscribe i saar, gambaleelkana furo. ma fahamtay? marka intaanaan ku ekeenaya. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.